laba group ay kala hayeen groupna waxay ahaayeen caafimaad groupna waxay ahaayeen cilmiga beeraha ugu talgalay sanadkan inaan ilaa dhawaad aan darno ugu talgalay waxaa ku guulaystay runtii alxamdulilah beerta beeraha waxaa ku guulaystay ilaa 8 arday oo maanta laga joogaan insha allah inaan sagootino beerta caafimaadkana ayana sidoo kale waxaa ku guulaystay ilaa 7 qof insha allah maanta bariya sagootinayna. So we have to congratulate all the students accepted for their postgraduate studies, either or MSc degree or PhD degree. And this is one of the important role of Abrar University in this country, to serve the community. So please, all of you should think of that. How to serve your community or how to help your community in not a selfish way. You are in Turkey, please think that you are representing your country and Abrar University. So behave well at that time, at least for your country and for Abrar University learning. So take care of knowledge, then take care of your image of your country and Abrar University. waxaan ugu mahadcelinayaa jaamacadda Abrar juhdiga farax badnaa ee gelisay waanu ku faraxsanahay farxadeeda inuu soo koobi karin insha Allah marka waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu safarka noo fududeeyo waxbarashadii ujeedkii iyo waxyaabihii ay jaamacadda noo dirtayna dad ka soo mir dhaliyo oo jaamacadda feedback wanaagsan u soo celiyo inaan noqono. Assalaamu calaykum. jaamacadda Abrar maamulkeeda oo kaalin xoog leh ka qaadatay inaan helno fursadan dahabiga ah oo cid kasta oo annaga naga mid ah maantay oo jaamacadaha magaalada Muqdisho ka baxay ee saheli karin oo fursad dahabi ah waxaan leeyahay alla ka sukow aad iyo aad u mahadsantihiin. waa dufcadii labaad ee jaamacadda Abrar ay u dirtay dalka Turkiga waxaana 8 arday ay soo diyaarin doonaan waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Abrar ayaa jaamacado kala duwan oo dalka dibadiisa ku yaala waxay la leedahay xiriir taas oo fududeysay in ardayda Soomaaliyeed ay waxbarashada heerka labaad u aadaan dalka dibadiisa.